السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دوادا أخيارتا سيدا توسك وحرن يوتيوب جانل كيغا دكتور جوهاري اوفيشيال iyo Facebook page kayga Dr. Jawhari. barnaamijkeena maanta uu ka duwan yahay barnaamijyada sida tooska ugu bixi jiray labadani page. waxaa si toos ah ugu daawan jirteen casharo caafimaad, talooyin caafimaad la xiriira xaaladaha la soo gudboonaada ama xaaladaha ku dhaca dumarka, cudurrada guud, kuwa caruurta iyo talooyin guud ahaan oo runtii qofka caafimaadkiisa wax badan wax ka bedeli kara. laakiin barnaamijkeena ka maanta uu ka duwan yahay oo waa markii ugu horreysay aan sameeyno reaction caafimaad oo la xiriira runtii muuqaalka maanta idin soo bandhigi rabno waxa waaye waa muuqaal naxdin leh, cajiib ah, la yaab leh, waa muuqaal cimri qaadasho iyo mudan in lagu tusaale qaato. waa muuqaal runtii ka hadlaya qofka markii si khiyaano, laaluush iyo si jaahilnimo wax uu ku soo barto dhibaatada ka dhalan karta midka nafsad ahaaneed iyo saameynta bulshada uu ku yeelan karo ayuu barnaamijkeena maanta ku saabsan yahay. idinkama hor dhacayo, laakiin barnaamijkeena maanta yaa marti ku ah. maanta waxaa runtii ila jooga oo muuqaal دكتور سودو بسم الله دمان بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أخيارتك وحرن channelك دكتور جوهري official. وحمان تفرحتي إن إذن هر إماده برنامج عن لقب تورالك غالي دكتور جوهري. ومركي أجوهري عن كسر موجود channel كان ما أنا نقول ده مركي أجوهري سيء عن كسر موجود. إن شاء الله تعالى وحاجر دونا برنامج بدن على قبل دونا barnaamijkeena maanta bilaawayna waa muuqaal runtii cajiib sidaan hore idinku sheegay. muuqaalkan sidina reaction ka bixin doona. muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay runtii macalinka iyo ardayga xiriirka ka dhaxeeya markii macalinka ardayga uusan si sax wax u barin oo si khiyaano iyo si qalad laaluush ah runtii si jaahilnimo ah oo ardaygii uu wax ku baro ama uu ogolaado ardaygii in si qaldan inuu wax ku baaso maadooyinkii jaamacaddii uu ku dhameeyay kadib shaqo uu raadsado ardaygii wixii oo kala kulmi lahaa shaqadii ayaan barnaamijkeena maanta uga hadlaynaa. ma idinka hor dhacayo, laakiin soomaalida waxay abuukaro way dhahdaa soomaalida ma ogtahay way mahmaadaa laakiin been kuma mahmaada soomaalida sida la sheegay. maama waxaa jirta oo runtii aad qaali u ah una baahan in laga fiirsado. soomaalidu waxay dhahdaa weligaa god dheer ha qodin, haddaad qodidna ha dheereynin ku dhici doontida lama oge. marka muuqaalkani mahmaadaas ayuu si gooni u taabanaya. weliba qaasatan waxaan rabaa inaan la hadlo dhammaan ardayda hadda wax baranaysa oo jaamacadaha ku biiraysa in muuqaalkani inay il gooni u lahaadaan si ay muuqaalkani uu tusaale ugu noqdo, aysan u dhicin arday muuqaalkani qaabku wax u dhacay qaab lamid inaysan ugu dhicin nolosha. waayo waxaan rabnaa in wax badan ka hortagno. marka muuqaalkan bilaabina tarawuk reaction kila sameey doona waxa waaye waa muuqaal cajiib leh. waad ka dhici doontaa insha Allah, waad ka heli doontaan awokana shactiriisto maanta way la joogaan. shactarada ma baahe shactarada videoga wataniyo muuqaalka waa asla arki doonaa gadaalka. laakiin muuqaalka muruge arrinta muruge isku bedeli doontaa. wallahi la daawanayna noo bilaw wixii aad tabay. ها وروع عجائب. أبوكر محمد شاني كاغا موقدا دكتور هو امتحان لو جرا نكان وين امتحان قلايا كلي مادوينك علمي انه قلايا دي ان انه كم دي ان دبل استراند دي ان يا ماشي كم ماشي كم ديسكاس اولوي يا توم بيج كقر حوار رك انا وحي لا تاني كاري نن عافمد برناي انه yahay waliba imtixaan halis ku jira imtixaan wuxuu ku jira adag waliba maadooyinka biochemistry genetics oo cell biology genetics ko maadooyinka aad ku adag aan isla aragna ka hor dhicmayno. okay meeshan waxaa kaaga muuqda mataqaana ونكنا محوك قصلي أنا كاغا مرة شكلها وان فاهمي أنا فاهمي ما أبوكر ترى أبوكر حالة امتحان لو جرا حالة قصة لمان هذا نيكا هو قصة ليا ماشان لو مقارنة كاغا وعجائب مرة محوس مين عم تقارن مرة ما تخصص ولا مرة حقنا سفع وعبو فكرة يا وعبو صوت ذاني كان وعبو فكرة يا هو قصلي ورأي ما قصة لا قرشة قصة لا قرشة قصة لا قرشة يوربا له كنا حقه وعبو دمع سيني كان مرة بلا عرفنا سمارة الحين التمر به لفة تمر باللفات كنت نيكا وحصول وحير معها عاديات بلا يصل عرقنا هي
والصومالي وين ماشي مجيتا wargaali ninkii oo intuu istaagay ayuu macallinkii u tagay muxuu siiyey lacag uu siiyey uu ka istaagay macallinkii loo tagay lacaga waxaa loo geliyay galkii oo max lagu qoraayay ayuu lacag u dhex geliyay macallinkii lacagtii la tusay macallinkii meel isku fiiri aragay waxa ka horeeya macallinkii lacagtii ninkii markuu waa fikiray fiiri madaxuu xoqtay wuu qoslay wuu soo istaagay kaarkii uu soo geliyay luf exactly just thinking kana saasay ahayd marka macallinkii uu gacanta ka saaray asig warqad waxba uma qorno waxba kama shaqeynaya waxba ma haynin bani maadada genetics-ka ebro ku yahay waxyaalaha dhan marka macallinkii lacagta u dhibo wuu aragay macallinka ma qaadan doonaa ma ka diidi doonaa marka ninkan wuxuu ku fikiray waxay ahayd maanta waxba ma hayside abti lacagtaada isku furo lacagtaada isku furo professorka ma qaadan doonaa lacagta aan firino ha ababala ya kawaygas ariya wuu ka dhoobsaday macallinkii lacagtii jeebka u gashtay maagiskan uu qoray oo maadiga dhan waaba baasay ninkaase ninka hadda maadi saro ku baasimaya ma ujeedin waa loo saxiixay waxaan hadda dunida ma ka jiraan of course why that's why qalkani oo u jilay dhaqtarkani reasonka u jilay waxba ka jira ana waxaan malayna waliba dhaqtarka inuu yahay fiir hadda intaan dhibaatada ka imaan doonto anagu filimka ma dhammaystiran qalkani waxa ka imaan doona ka weyn exactly waan arki doonaa ka hor dhici mayno laakiin Soomaalidu waxay dhahdaan ninka dad sax u baran dhibkiisa badan لكن معناه كان لا له شو قال اسكو سامو سو هاجر اسنا وهذا يا بنا هي ابوك روح كويدنا هذا معلم هاجرتي هولان كور ويليام اسكو داير انا امتحان بوكو اكيد جري ويليام اسكو داير لا اله ما يا دي هذا عندي واي لك خلصوا اللي جبت هذه لكن هذا ولا مسكتين مو هذا هو بقرة دواء وكان يرتاح ووعلى يابله جزورا لا يالله بل أعرف وعي كده دي كده ورثتك لا ركتك جامعة دوايا جامعة دول حقوقي كي هرا وحالسي بوندس ما لا يا سيدي بوندس كان الدائرة شوية كان دولار رسالة هذا قبل كده بركة ولا شيء كان قصة عند باشا ورياه والله مقال كان حكون ما صار كده نوني كنا مقال معموله جامعة دي ايوب هذا الدولار انه خاطئ ماشي امتحانه ويا يشوشوا لك انا كان almost waxa waaye successful waa imtixaanki waa ku baasay maadooyinkiisna waa sixi shahaadada la siiro macna tan ku soo baxay abo tan ku soo nintan ku soo baxay dhibkiisa badan congratulations another case waxaa muuqaalka soo dhex galay sidaad aragtaan gabar cuntadeeda jarjaranaysa oo raashinkeeda diyaarsanaysa laakiin sanka dhiig ka wada badanaa waa naqaana Soomaalida waxa uu yaqaanaa sangor ama bistak sida caafimaadku u dhaho waxyaabo badan keeni karo oo sidaan ognahay in cancer iska keeni kara respiratory tract infection keeni kara sanka jug ku dhacdo kale qofka oo sanka aad inta u maraa mur kadibna xididay intay dilaacaan dhiig ay keenaan waxyaabo badan keeni karo laakiin gabadhaani waan arkaynaa wala kulli xaaladeeda meesha ku dabayso dhakhtarkii ama loo geyn rabaa والله شيء كذا ساسي وقتها مرة ساسي وسعتها ساسي وما لها أو ما لها إلا وضع ما هي وتواي كي قبل دي عرفتي oh my god أبو كريا عرفتي وهذه عرفت إنك عرفت واقع. إنك بروفيسور كي أوتشي ديبارتمنت إنك خلين كانوا هايو إنك. وأرضي امتحان كي هذا. أسيبه هو يسي. نقول علينا. أنكو تصل. إتوس. أنكو تصل علينا. وكان فيه.
marka ohe waa siga waa ninkii hadda imtixaanka oo macalinkii la luushay oo si masuq wax ku soo bartay xitaa madaxa ugu sareeya jaamacadda rectorka xitaa intuu lacag siiyey shahaadadii sidii ku soo qaaday waxay la tahay shahaadadii caafimaadkii ayuu goob shaqo la imaaday oo weliba xasan sida qalin ayuu hadda ka qayb qaadanaya qalin ayuu sameeyay ninkii macnaha waxa weeye macnaha dhamaan hada macnaha waxa weeye ninkii shaqo buu imtixaan shaqo helay si fiican jawaab hadda dhaftar waa qalin oo sameeyay oo sidoo ku dhex jira saalo ku dhex jira wax buu qalaya waa ninkii beebanta ku soo bartay waa kisti wixii afaari aniga ilama hayno qalin ku guuleysanay ma u bagin kan awu intan hadda okay shart aniga qalin ku guuleysanay maya waxaan ninkan ilama adduunka waa fududaatay qofka agtiisa joogo kisiira waa maxay ma ya banaade taqdar kalma kaleera bu kisiira ba hadana magaalada ku soo okay amirina wariyahay ninka boosteriga ka dhacay booster wax lagu sameeyay ayaaba ka dhacay bisinkiyo jaa macnaha markii ninkani orto kulli orto meesha uu qal rabo almost way qarsan tahay anagana bukaanka uma jeedin gebiyahan oo meeshaas ayuu qal raba anaga ma dhihi karo waayo muuqaalka almost way qariyeen site skin kaliya ayaa muuqda laakiin ninka waxaa ka muuqato kalsooni daro cabsi fara badan in uu jareeyay oo xitaa booster wax lagu qalay xitaa inuu cili waayay ayaa meesha ka muuqato ninkani uma muuqdan in muuqaal ii sheeg qalinkan inuu ku guuleysan doono awkar hadda u jeedaa Soomaa jaa wuxuu dib u xasuustay waxbarashadiisii hore wuxuu aqrin jiray imtixaanaadkii lacag oo bixinay jaa uu shalaynaya ano la muuqata in waayo hadduu wax soo baran lahaa wax aqrin lahaa maanta keeskaas dhag uu sii lahaa wuxuu soo xasuusan lahaa waxyaaluhu soo aqriyay anatomiga soo bartay ay intuu xasuusto anatomiga ku guuleysan adduunyiga marka jaa wuxuu wax ku soo bartay ma aha wax asiga ma soo baran wax ma soo baran macallimiintii professoradii manageradii maamuladii ayuu dib u xasuusanaya oo tii ku soo bixinayay cajiib ababala professorkii Soomaali kan maxaa aragtay tore soo ninkani Soomaali macallinkii oo dhaqtarkan wax soo baray warniyahow waa ninkii wax soo baray okiyalka u gashanayo waa asagi waay professor Chinchon mallah waxaa la loo shaqaaday professor Chinchon waa ninkii macallinka wax soo baray waay Soomaali anigu haddana marwadiisa waa qofka xanuunsan qofkani xanuunsan eedir waa marwadiisa ama qof xididkiisa waana macallinkii wax soo baray maanta asigay haysataa oo lacagtii ka soo qaatay haddana waxa waay ama gaag iyo fajax iyo adduunyada lala yaabo waa mucjiso ah in arday aad si qayaano wax ku soo bartay oo sax u soo bari weysay in qof xididkaada ama xaaskaada أنا وإسلاها إنه قوي واي وإنه تاعي وإسلاها مكانه هو قلي ونكي وهي كي إبرك هاي أو امتحانك يا دلوش كوسا بس ما حاس كذا كذا قلي أيو استاجي من جد الوحدة هاي يا كو قلي تاني حبسي أسكون هاي معنا ومن وين نكان ميا كيس كوسا قلي من نكان ميا حاس كذا قلي ما قف حدث كذا ويا بيا معنا ما احنا حسليه نكا ميلان قارتي يا او نكي واي ميا لعقتي ونكي ولعقتي ميا نكي لالو شق قادين درت معجزه نكي وليلها ترى جا حسوسو قالي وهو حسوستي لعيو كقادين جري ماكسكي وحي او سيناي سدا قيامه ku soo baasiyay beebantu ku soo baray ninka inuu soo waxba aqoon oo ogyahay sidoo ku qali kara marka xaaskiisa jaa taas is weydiinaya marka daas way u xasuusanay waa shalayta waa Soomaalidu waxay dhigi jirtay shalay waa dambaysa marka jaa waxba ku soo noqonaya markii imtixaanku uu fadhiyay lacagtii uu ka qaadanayay ma shalay haduu lacagta ka qaadan lahayn maanta ma aysan ku dhacay kuma dhacdeen maanta So ما هو عجيب والله عجيب
wuxuu dhahay waa ka xumahay macnaha waa badbaadi waayo waa macnaha markuu madax saan uu leeyahay macnaha xaaskaada waa badbaadi waayo waa ka xumahay waay waa ka xumahay waxaa kaloo ku jira mid kaloo ku qarsataa ugu karo macnaha haddaad wax i bari lahayd oo aad maadooyinkii aad laaluusha aadan iga qaadan lahayd safa wax i bari lahayd xaaskaada waa badbaadin lahaa waa ku xumahay saas macnaheeda waa isku jirtaa waa ku xumahay isku jirtaa waxa waa in waxba isoo barin lacag baa iga qaadata waa waa qayaantay si kala bilo fiirina waa qayaantay wala lacag ay qaadato waa effectiga macnaha dhibka ugu weyn waa odaygii ku laabanay lacagtiina wuu qaatay cunugii waxbarashadiisii wixiisii ma uusan ka shaqeyn horumarkiisii beri inuu qof dhaktar naqanayo muhiimada fiir ma aha ma ogtahay machine ma aha sax waay ya machine ma aha sameynaysid ma hadduu halaabo oo aan naf aysan ku jiro oo beri lagula xisaabtamayna maaha waxa lagugu aaminayo waxay tahay naf bini aadan oo adduunya iyo aakhiraba lagula xisaabtamayo adduunya iyo aakhiro fahmay marka waxa waaye haddaa maanta uu ahaan lahaa qof wax barta misana macalinkiisa uu ku tarbiyeyn lahaa inuu wax barto wax aqristo uu lacag ka qaadan lahayn waxaan waa la iska helayaa lacag waa la iska helayaa tutoore muuqaalkan horta runtii muuqaal tusaalo u ah qof walba wax baranayo inuu si sax wax u barto nafsadiisa nafsada dadkiisa intaba inuu wax u barto si biri oo meel ugu soo baxo iyo macalinkii wax baraya macalinka xitaa fiiri Soomaalidu maamaadi markii la leeyahay weligaa god dheer ha qodin haddaad qodin ha dheerin macnaha waxa waaye macalinkii haddii ardaygan shalay wax bari lahaa uu si fiican usoo tarbiyey lahaa uu ku adkeyn lahaa maadooyinka ardayga uu dadaali lahaa si fiican wax u bari lahaa maanta xaaskiisa inuu badbaadin lahaa godkii dheer uu qoday kumuusan dhacayn laakiin godkii dheer asigaa si qaldan u qoday oo lacag ka qaatay si qaldan u qodayna maanta waxaa ku dhacay asigaa ku dhacay oo xaaskiisa iyo qof aad u jecel yahay ayuu ku waayay qof walba macallin walba tan uu sameeyay waa hubaal inay ku dhacayso waayo wax walbaba aad samaysid waa laga jariyaa haba soo dahde waxa waaye xaq waa kii soo daahiro waay Dr. Johari midda kale markii sidaan midda kale reaction oo horta markii ugu horeyso dad Soomaali oo midda kale reaction ka bixiyay anaga waa say ila tahay intaas aan fiirsanay intaas aan arkin ma aanan horta waa dhamaad horta uu kan muuqaalku uu noo dhamaaday dad badanna muuqaalkan uu ku xidhan qaadan Dr. Johari aan ka hormaro meeshaan waxa iga muuqda waxaan iga muuqda bayduga reaction aan ka bixinay waxaan hay kulli dadka ugu horeey ka bixiyay reaction medical reaction si fiican xaqiiqatan waxaan horta waa baydu la sameeyay muddo dhowr daqiiqo soconaya laakiin muhiimadda ka qisadan dhacday waa qiso dhab ah waliba waxaa qarsoon kumanaan qiso kale sidaan oo kale si fiican وينفع ملاينا لكن ما هو dad maxaa u sheegi lahayd fiiri waxaa jirta hadda arday 40 dhowr kun hadda oo secondary shahaado qaadatay imtixaanka shahaadiga dowladda gashay oo rabtay inay jaamacado ku biiraan ardaydaas maxaa tala siin lahayd inaysan ficilkan oo kale iyo qisadan oo kale inaysan ku dhicin si fiican inaysan ku dhicin waa wax laga xumaado la yaab leh wallahi runtii qofka xitaa nafsadaan xitaa saameyn maskax ahaan xitaa u geysan karto oo wax cajiib leh wallahi warnimo yahow lacag waa la iska helaa wax ma ahan marka si waxaan fariin u dirayaa dhammaan u dirayaa horta tii lacag ahayd waa la iska helayaa dad baa jira ganacsi sameeya fariinta aan diraya waxay tahay qof walba oo macallin ah soomaalinimo ku jirto islaamnimo ku jirto wax baraya adduunka oo idilba ayna daawanaysaa qof walba wax macallin ah waxba ardaydiis wax baraya ha ka dhigo arday lagu tashan kara arday lagu tashan kara arday tababaran arday maxaan ku yiraahdaa geed baa la abuuraa geedka mirihiis inuu ahaado miro macaan badan waxtar leh marka macallimiinteena khayr Allah wada siiyo nagu soo wada dadaaleen alxamdulillah Dr. Johari adan ku dhaafnaa inta kale Abukar waxa muuqaalkeen waxa waaye waxaan filay inaad aad uga hesheen muuqaalka hala share gareeyo page-ka maxaad leedahay YouTube channel-keena anigu mid hal balan baan ku qaadaa Dr. Johari official dadka ku xiran dad aad u wanaagsan weeyo 5000 subscribers haddaad samayso laakiin 5000 subscribers haddii la gaarsiiyo waxaa balan igu ah
inaad adigana faraxdaan adinkana aad faraxdaan Dr. Abuukar Cadaaw balan oo qaad 5k ana la gaarsiiyay muuqaalka la share garay subscribe like inta insha Allah noogu dadaal aad oo maasantiin muuqaaladan oo kale iyo qaarka qurux badan wada filan doontaan hadduu alle wax weyn ma aha subscribe deh kambalelka furo all event deh dhagle sulgle like fartale ha ku taawale wax alla mawduuc aragtid in laga hadlo comment ku soo qor balan waa ku soo qorayna maalin walbana insha Allah video kasta waxaan isku dayayaa video badan inaan la soo sameeyo Dr. Jawhar official danimo naga baasha maxaa la jira halka